السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أو نكسن صاحب يال جمع ونكسن مال والباجوكتين هل كان ودولي ميديا وشو دبادة موقال كنا مانتا inta badan dadka Soomaaliyeed ee dunida ku wada nool waxay toddobaadkan la socdeen kiiskii badda ee maxkamadda ICJ horyaalay iyo xukunkiisa ilaahay baa mahad iska leh oo xukumiyay Soomaaliya inta badan dhulbadeedkii la isku haystay kadib xukunkii badda Soomaaliya maxay muujisay waxaa halkan idinku soo gudbinayaa 7 qodob ay Soomaali banaanka keentay oo si fiican u cadaatay qodobka koowaad anoo soo koobaya qodobka koowaad waxaa meesha ka baxday sheegashadii Kenya ay sheeganaysay kuna doodaysay is-afgaradkii badda in lagu xaliyo wadahadal hoose Soomaaliya iyo Kenya oo meesha ka baxay sababtoo ah maxkamaddu waxay si cad u xukuntay una cadeysay in Kenya ay ku xadgudubtay madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya labo waxaa meesha ka baxay in wax Soomaali leedahay isla markaana ay ogtahay aan la qaadan karin si dheel aan ugu qaadan karin iyo is-fahan dad siyaasiyiin Soomaaliyeed qayb ka mid ah ee ka wada galeen waxaa cadaatay dadka Soomaaliyeed inay wada yihiin dad wada leh badda dhulka si walba ayaga isku haystaan qodobka saddexaad oo cadaatay oo banaanka imaaday waxaa muuqatay awoodda Soomaaliya oo ku dhawaad 30 sano ka maqnayd saaxada adduunka waxay muujisay in Soomaaliya ay macnaha leedahay awood ay ku difaacan karto haddii noqoto sharci iyo haddii noqoto awood dhaqaale iyo isku duubni intaba way muuqdeen qodobka afraad waxaa cadaatay in Soomaaliya ay leedahay aqoon-yahano soo jeeda aan ku qanacsaneyn habka iyo hanaanka waxay u socdaan wadanka si walba ha noqotee waxaa cadaatay aqoon-yahano fara badan oo dal iyo dibadba jooga oo cadeeyay mowqifkooda ku aadanaa xuduud badeedkii Soomaaliya iyo Kenya qodobka shanaad aan doonayo in halkan ku soo koobo kadib dacwadii kiiska iyo xukunkeedii waxaa weeye Kenya oo cadaatay in Soomaaliya ay soo jeedo iyo in aysan dadka Soomaaliyeed aysan ka tanaasuleynin taaka ka mid ah dhulkooda iyo baddooda iyo wax walba oo la mid ah waxaa cadaatay Kenya ay ogaatay in Soomaaliya ay soo jeedo aan la marsiin karin luuqyo fara badan oo lagu dhaco hantidoodii qaranka ahaa 6 fariin cad oo ay dirtay dowladda Soomaaliya in ay tahay dad mar walba ka daba tagi kara khiyaano qaran kasta oo dhacda haddii ay ka maqnaato saaxada dunida iyo haddii ay joogto iyo in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ka taxadiraan waxyaabaha ay saxiixayaan oo hantida qaranka ee ummadda dhan oo ka wada dhaxayso taasna fariin cad ahaan ay u muuqatay qodobka 7aad aan kusoo gabagabeynayo ayaa wuxuu yahay in Soomaaliya dhawaan ay cadeysay in cagaheeda ku istaagi doonto kadib dacwadii badda ay gudbisay Kenya iyo Soomaaliya waxay muujinaysaa in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay mar kale ay la jaan qaado dowladaha dariska iyo caalamka kale. Wassalaamu calaykum.